wixii saaxiibkii madaxweyne xasan sheekh shalay aan ka wada shaqaynayna waan ka shaqaynaynaa haddana isagaa naga maqan isaguna ha ku soo biiro insha allah xildhibaan hooyadii oo meel cidlaa intii lagu dejiyey layidhi annagaa qaadayna haddana cidlo lagaga tegey oo layidhi orad meesha cidlada isbitaal laga soo qaaday waa wax aad iyo aad iyo aad iyo aad dhibaato u ah waana wax xisaabtanka geli doonta wax la-aan ku tegi maayo waa run muqdisho waa nimid martina kuma nihin hoteelkanna waan soo degnay horaan u soo degi jirnay ma anaanu iman inaan intaan 2 maalmood joogno maalin joogno maalinta labaad noqonay waxaan u nimid inaan Soomaaliya xalkeeda gaadhno tala la wada leeyahay wixii saaxiibkii madaxweyne xasan sheekh shalay aan ka wada shaqaynayna waan ka shaqaynaynaa haddana isagaa naga maqan isaguna ha ku soo biiro insha allah waan ka xumahay wax badan oo dhacaya oo xildhibaanada xorta ah ku dhacaya oon maanta xogaal ka ahay xildhibaan hooyadii oo meel cidlaa intii lagu dejiyey layidhi annagaa qaadayna haddana cidlo lagaga tegey oo layidhi orad meesha cidlada isbitaal laga soo qaaday waa wax aad iyo aad iyo aad iyo aad dhibaato u ah waana wax xisaabtanka geli doonta marka xildhibaanow waxaad u shaqayseen wixii laydiin soo doortay laydiin soo egmaday iyo dadka aad ku matalayseen aad iyo aad baad u mahadsantihiin shaqadaad qabateen waana wax aan ka sii wada shaqayn doonno inta u dambaysana fariimaha iyo de hadalladii aan odhan lahaa inta badan waa la yidhi laakiin waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo waxay hadda saaxiibada yidhaahdeen waxba kuma sii daray weliba inta hadda siciida u dambaysay waan wada hadli doonaa nabad baan u nimid xal waddankan in laga gaadhaan u nimid mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya inayna burburin baan u nimid maanta waa run waxa arrintii Cabdi Qaybdiid ka hadlayay abaarta maanta meesha ugu xumeyd bay taagan tahay xoolihii way dhammaadeen gaar ahaan nugulkii dadkii baa hadda dhammaanaya shalay markaan soo baxay iyadoo dagaal xun aan ku jirnaan ka soo baxay meyd iyo dhaawac baa yaalay dhibaatadu way taagan tahay laakiin nasiib darro waxaa dowladnimadii iyada tii weyneed hadday burburtay waxba socon weyda dee kuwa gaarkeen hooseen ku jira waxba ma qabanayaan sidaa daraaddeed reer muqdisho waynu ishaynaa waan idiin joognaa talaan ku tegi doonaa waxaan la wada leenahan ka wada shaqayn doonaa wax Soomaali u dhaxeeyaan isula iman doonaa taasaanan ka shaqaynaynaa kulamo badan iyo wada hadallo badan iyo xidhiidho badanna waan samayn doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu